السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan muuqaalka si kooban uga hadlaynaa taariikhda asaasiga boqortooyada Cusmaaniyiinta inagoo sidoo kale barnaamijka taxana ka dhigi doona kuna soo gudbin doona taariikhda 35 boqor ee soo maamulay saldanadii Cusmaaniyiinta. haddaba haddaad nagu cusub tahay saar subscribe oo nagu soo biir. مجلس ودميسترن وأبو الملوك فخر الدين عثمان خان ابن غازي أردغرول ابن سليمان شاه التركي وهو جميع قبيلة كاي سوكل ووكيل كسلا شغالي رومو قابل سنة مامل كماردها دولكا أنادولكا سوكل واساسها بقرطوية مامشد ولكا بلغانكا أنادول حجاز بورها لبنان يوقوي أفريكا مدقان سلح بقول أوصنو وحانا بقرطوية سيسوق وقودي مركي يكون سغال بقول لبين لواتنك اللي واقعي nidaamka jamhuuriga qaatay oo ku jirta dagaalkii koowaad ee adduunka waxa uu dhashay 656 hijriga oo ku beegan 1258 miilaadiga waxaana abawha Ardogorol Gazi oo laga matay mustaqbalka caanka noqday qiyaamada Ardogorol soo kale xaqiijin dhaqaale khiyaali ku noqday caalamka daraamada oo dhan soo kale wasaaraha Pakistan ayaa amray in filimka loo turjumo afka Urduga si bulshada isugu daawato dhalinyarta wadankaasina ay uga faa'iidaan wax taariikh islaamka kamid ah waxaan hooyo wahay Xalima Khaatun inkastoo taariikhda isku khilaafeen hooyadii haddana sida loo badan yahay in Xalima hooyadii ahayd sidoo kale wax isku xiriiraan taariikhyahanada dhicitaanka dawladda Cabbaasiyiinta iyo dhalashadiisii maadaama holaaka ciidankiisu ay Baghdad burburiyeen 656 hijriga isaguna sanadka dhashayba waxaan la sheegay in xukunka qabiilkiisa iyo imaaradaha Anadolka uu gacanta ku dhigay kadib dhimashadii aabihii inkastoo loo wiilka weynaayeen isaga waxaan waqtiga dagaal istawjooga ku bilaabay qaar kamid ah qalcadii Byzantiyiinta waxaanu gacanta ku dhigay maamulka badaha Marmara iyo badda madow kadib markay Mogoolku gacanta ku dhigeen dawladdu oo hoosiman jiray Salaajaqada ayuu ku fikiray inuu dawladdu dhiso Turkida maadaama Salaajaqadii gacanta Mogoolka ku dhacday waxaanu ka falaagay maamulkii Mogoolka waxaanu dhulka Sooqood ka asaastay dawladdiisii iyo dawladda loogu magacdaray Cusmaaniya iyadoo isaga loo nisbaynayo waxaanu maamulay intuu dhaxaysay 1299 ilaa 1326 miilaadiga intuu noolaana wuxuu nolosha la wadaagay laba dumar oo kala ahaa maalaha oo ahayd hooyada Arooqaan oo xunka ka dhaxlay aabihii iyo sidoo kale gabadhii labaad ee ahayd Baala sanadkii 1326 miilaadiga wuxuu inankiisii Arooqaan furtay magaalada Boorso oo ahayd magaalo weyn oo dhaweyd badda Marmara isla waqtigaana Cusmaan waa xanuunsanay wuxuu saarnaa sariirta sakaraadka waxaa inankiisii u wareejiyay xarunta dawladda magaalada Boorso halkaas lagu aasay Cusmaan soo ka siday sheegeen Cusmaan wuxuu ahaa nin saayida oo aan jecel israafka waxaanu ahaa nin u roo masaakiinta waxaanu ahaa nin raacsan suufiyada maadaama culimada dhulka joogta ay suufiyuun u badnaayeen sida sheegeen ay jirtay Cusmaaniyiintuba waxay taabacsaneen dariiqa suufiyada waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa jira musalsalka laga sameeyay oo imika socda oo taabacsan musalsalkii hore qiyaamada Ardogorol sabab bixin lagu soo saaray waxay sheegeen in 193 dadka daawada musalsalkan uu cajabiyay intaas ayaan ku soo koobaynaa taariikhda Cusmaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.